بسم الله الرحمن الرحيم دولدها بنتلان iyo galmudug ayaa caawa shir ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada Gaalkacyo Puntland waxaana shirkaasi si wada jira u shir gudoomiyay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweynaha dawladda galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyadoo ay shirka ka qayb galeen mas'uuliyiinta heerarka kala duwan ee labada dawladood shirkaasi ayaa waxa ku saabsanaa iskaashiga dhinacyada amniga nabadeynta ganacsiga isku socodka dadka iyo horumarka shirkan ayaa ugu horeyn dib loogu milicsaday heshiiskii iskaashi ee labada dawladood guulaha laga gaaray caqabadaha iyo fursadaha iyadoo shirkan loogu gogol xaaray shirweynaha dardargelinta dadaalada nabadeynta ee gobolka Mudug labada dawladood waxa ay isla gaareen qodobada kala ah xoojinta iskaashiga amniga nabadeynta ganacsiga dhaqaalaha iyo isdhexgalka bulshada ee Puntland iyo Galmudug labo qabashada kulamo heer wasiira oo 3 bilood ah si loo xaqiijiyo kamira dalka dadaaladii socday saddex in mashaariic horumarineed laga hirgeliyo deegaanada ay colaaduhu saameeyeen si ay bulshadu u soo kabato afar in labada dawladood ay si wada jir ah daraasad midaysan uga sameeyaan maareynta biyo saarista degmada Gaalkacyo ugu dambeyn shirku waxa uu bogaadiyay wada shaqeynta hay'adaha labada dawladood ee Galmudug iyo Puntland iyo bulshada labada maamul oo mar walba u taagan ka shaqeynta amniga nabadda iyo horumarka